wanaagsan ilaahantii badawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysan waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo waliba barnaamijkeeni wargeysadu waxay qoraan oo saacadahan oo kale aad ka daawataan shaashadaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland habeenkan caawana daawadayaal xubnaha aan ku soo qaadan doono waxa kamid noqon doona xukuumadda iyo baarlamaanka oo ka hadlay sidii loo qaybin lahaa shidaalka dalka waxa kaloon daawadayaal ku soo qaadan doona dawladda wadankaasi Kenya oo sheegtay in ay qunsuliyad ka furan doonto caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa daawadayaal xubnahaas iyo xubno kale oo xiiso badan ayaan ku soo qaadan doonaa intaan ku guda jirno barnaamijka wargeysadu waxay qoraan ee hanaga fogaanina daawadayaal haddii daawadayaal soo qabto xubinta ugu horreysay barnaamijkeena wargeysyada habeenkan caawana daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliland oo ka hadlay habka loo qaybinayo dhaqaalaha shidaalka Soomaaliland laga qodayo ee ka soo bixi doona haddaba daawadayaal amuurtaasi waxa ka hadlay wargeysku ogaal tirsigiisa maanta soo baxay ayaanu ku soo qaatay wargeysku wuxuu ku bilaabay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo baarlamaanka ayaa ka hadlay sidii loo maamuli doono qaybinta dhaqaalaha ka soo baxa soo saarka shidaalka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Xuseen Cabdi Ducaale ayaa cadeeyay inay sameyn doonaan xeerka dhaqaalaha shidaalka oo hagaya sidii loo qaabeyn lahaa dhaqaalaha ka soo baxa shidaalka dalka Dr. Xuseen Cabdi Ducaale oo ka hadlaya kulan la xiriira saameynta xeerka lama huraanka ah oo ah sahaminta shidaalka iyo waliba macdanta dalka kana soo qayb galeen gudoomiyaha guddi hoosaadka kheyraadka dabiiciga ee golaha wakiilada garyaqaanka guud ee qaranka iyo garyaqaan ka socday shirkadda caalamiga ah ee diyaarinaysa xeerka shidaalka ee wadamo badan ay cadeeyeen inay dhameystireen xeerkani muhiim u ah horumarka dalka iyo waliba shirkadaha saameynta shidaalka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir Xuseen Cabdi Ducaale ayaa sheegay in sharcigani uu ka kooban yahay 4 qodob oo bandhig u noqonaya in sharci cusub loo sameeyo isagoo oo ka hadlaya waxa uu yiri wasiirku sharcigaasi wuxuu ka kooban yahay 4 qodob sharcigani ayaana la bilaamayaan khubradda caalamiga ah ee maanta inagala jooga qabiilka ugu weyn ee shalay yimid buu yiri oo shirka ugu horeeyay nala qaatay waxa markii la sameeyay siyaasadda sharcigani ka duulaya dabeedna waxa la bilaabayaa buu sharciga laftiisa waxaana markaas lagu xigsiinayaa xeerka hoosaadka sharciga ka imanaya ee lagu dhaqmayo waxaana ugu dambeyntii in la sameeyo xeerka dhaqaalaha ee shidaalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hagaya sidii marka kheyraadkaasi inoo soo baxo loo qaybinayo ee dalka ugu faa'iideysanayo oo aana wax la isku qabqabsado aan noqonaynin oo sharci noo yaala ayuu yiri wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamartu marka wuxuu yiri insha Allah runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan arintani maanta dahfuro aynu ku jirno inuu noqoto arrin muhiim u ah dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland oo horumar ballaaran u noqonaysa haddii dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland shidaal laga helo taasi oo qarankani horumar ballaaran gaari doono haddaanu daawadayaal xubinta ugu horreysay barnaamijkeena wargeysadii habeenkan caawa intaasi kaga nimaadno xubinta labaad ee daawadayaal ku soo qaadan doona ayaa waxay tahay dawladda wadankaasi Kenya oo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ku dartay wadamada ay ka furanayso qunsuliyadaha sanadka 2014 daawadayaal amuurtaasi waxa wax ka qoray wargeyska geeska Afrika waxaanu ku bilaabay dawladda Kenya ayaa miisaaniyadeeda sanadka cusub ee 2014 ku dartay 8 safaaradood iyo 6 qunsuliyadood oo ay mid kamid ah sheegtay inay ka furanayso magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa sheegtay in miisaaniyada cusub ee bilaamays bisha July ee sanadka cusub ee 2014 ay ugu jirto 8 safaaradood iyo 6 qunsuliyadood oo ay ka furanayso wadamo Afrikaan ah oo ay Soomaaliland ku jirto wargeyska The Business Daily ee Kenya ka soo baxo wargeyskan geeska Afrika soo xigtay ayaa baahiyay in caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ay kamid tahay magaalooyinka laga furayo qunsuliyadaha waxa kale oo qunsuliyada laga furaya ayaa wargeysku yiri magaalooyinka Arusha Lagos Goma halka safaarado ay ka furan doonto wadankaasi Kenya dalka Algeria Morocco Angola Ghana Malawi Senegal Djibouti iyo wadankaasi Cuba wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxay sheegtay in talaabadani ay kamid tahay qorshayaal ay kor ugu qaadayso saameynta diblomaasiyadeed ee dalkeeda
haddii ay Kenya tallaabadan qaado waxa ay noqonaysaa ayaa wargeysku leeyahay markii ugu horeysay ee qunsuliyad ay ku yeelato wadankani Somaliland taas oo wax weyn ka qaadan doonta xidhiidhkii labada dal ka dhaxeeyay ayaa wargeyskan Geeska Afrika oo maqaalkan ka soo xigtay wargeyska ka soo baxa wadankaasi uu intaasi ku soo gabagabeeyay wargeyska saxana daawadayaal tirsigiisii maanta soo baxay ayaa waxa uu ku soo qaatay wadankaasi Ruushka ayaa daawadayaal waxa uu hor istaagay in wadankaasi Ukraine uu ka mid noqdo midowga Yurub haddaba daawadayaal wargeyska saxo isagoo amuurtaasi faaqidaya waxa uu yiri wadamada midowga Yurub oo muddooyinkan dambe ku mashquulsanaa in sidii ay ugu soo dari lahaayeen ururkooda qaar badan oo kamid ah bariga Yurub ayaa ku fashilmay inay heshiis la gaadhaan wadanka Ukraine oo ugu muhiimsanaa dalalka bariga Yurub kaasi oo cadaadis adag uga yimid dalka Ruushka madaxda wadamada midowga Yurub iyo bariga Yurub ayaa ku shiraya magaalada Vilnius ee caasimadda wadanka Lithuania hogaamiyaha Ukraine ayaa u xaqiijiyay madaxda midowga Yurub ee halkaasi ku shiraya in Ukraine aysan saxiixi doonin heshiiska isdhexgelinta dhaqaalaha iyo maamulka oo bilow u ah in wadankaasi mustaqbalka ku biiro midowga Yurub wadanka Ruushka oo xilligan dadaal ugu jira wadamada jaarka la ah oo hore xidhiidh dheer uga dhaxeeyay inaysan ku biirin midowga Yurub isagoo adeegsanaya awoodiisa dhaqaalaha sida gaaska iyo batroolka uu siiyo wadamada bariga Yurub ee jaarka la ah shacabka Ukraine ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waday banaanbaxyo ay ku codsanayaan inay ku biiraan midowga Yurub iyagoo sheegay in Ruushka aan wax mustaqbal ah u hayn walow ay muuqato in xukuumadda Ukraine ay ka tambadisay cadaadiskii ugu imanayay Ruushka ayuu wargeysku ku soo gabagabeeyay qormadiisan maxkamad ku taala wadankaasi Masar ayaa iyadu xukun adag waxay ku xukuntay dumar ama haween taageersanaa madaxweynihii hore ee xukunka laga qaaday ee militarigu ay xukunka ka qaadeen ee Maxamed Mursi daawadayaal mar kale amuurtaasi waxa eegaya wargeyska ogaan maxkamadda Masar ayaa xabsiga ku xukuntay haween lagu eedeeyay inay taageersanaayeen madaxweynaha hore la afgambiyay wadankaasi Masar Maxamed Mursi haweenkani oo tiradoodu gaarayso 22 haweena ayaa maxkamaddu sheegtay in lagu xukumay 11 sanadood xabsi ah kadib markii lagu helay dambiyo kala duwan oo isugu jira inay ka qayb qaateen barnaamij lagu taageerayay madaxweynaha hore dalkaasi Masar Maxamed Mursi iyo inay ka tirsanaayeen kooxaha argagixiso oo rabshado ka sameynayay magaalada Iskandariya bishii hore wargeyska ayaa isagoo hoos u sii daadegaya ayaa waxa uu yiri 7 ka mid ah haweenkani ayaa da'dooda lagu sheegay 18 jir waxaana tallaabadani aad u cambaareeyay hay'adaha xuquuqda aadamiga u dooda oo xukunku tilmaamay inay tahay mid aan la aqbali karin mid ka mid ah qoysaska gabadhan 15 jirka oo ka mid ah 22 haweenka lagu xukumay ayaa sheegay inay gabadhoodu ay u socotay iskuulka xilli ay ka dhacayeen banaanbuxu magaaladaasi dawladda ku meel gaarka ee Masar oo taageero ka helaysa militariga dalkaasi ayaa hore u xidhay madaxda ikhwaanu muslimiinta iyadoo dadweynuhu taageersanayeen madaxweynihii hore dalkaasi Masar Maxamed Mursi ee xilka laga afgambiyay wargeyska waahayna boggiisa ciyaaraha ayaa daawadayaal waxa uu ku soo qaatay ciyaaryahanka u safda kooxdaasi Real Madrid ee Sergio Ramos oo laga yaabo inuu ka tago kooxdaasi haddaba wargeysku isagoo amuurtaasi ka falanqoonaya waxa uu ku bilaabay waxa soo baxaya warar sheegaya in tababaraha kooxda Real Madrid Carlos Ancelotti aad uga careysan yahay hoos u dhaca ku yimid difaaciisa Sergio Ramos iyadoo kamerooyin hoose oo ay duubeen Ancelotti oo hadallo kulul kula hadlaya difaacan kadib casaankii uu qaatay kulankii Galatasaray sida aan ka soo xiganay El Mundo Deportivo xiriirka u dhaxeeya laacibkan iyo madaxweynaha kooxda Fiorentina Perez oo lagu daray tababaraha inuu yahay mid aan wanaagsaneyn muddo usbuucaha laakiin waxay sii xumaatay markii uu calaamada casaanka ah qaatay kulankii Champions League ay arbacadii la ciyaarayeen kooxda Galatasaray Ancelotti ayaa aaminsan in Ramos uu iska indhatiro hadallada uu u sheegay isagoo sheegay inuu ku yiri ciyaarta ka hor iska ilaali qaladaad aad ku gasho weeraryahanada Galatasaray wargeyska ayaa intaas raaciyay in Ramos uu waqti dambe dalbaday in loo kordhiyo mushaharkiisa laakiin Perez ayaa diiday dalabkaas laacibkan taas ayaana keentay in la shaaciyo inay suurtagal tahay inuu iskaga tago kooxda Real Madrid wargeyska saxana boggiisa ciyaaraha ayaa daawadayaal waxa uu ku soo qaatay kooxdaasi Manchester City oo soo iibsatay ciyaaryahanad laacibad ah
daawadayaal sidaasi waxaa qoray wargeyska saxan saxo haddaba daawadayaal ciyaaryahanadaasi tuma ayaa noqon doontaa waxaynu ku ogaan doonaa maqaalkan gudihiisa ee daawasho wanaagsan weeraryahanada xulka hablaha England Tony Dugan ayaa heshiis 3 sano ah u saxiixday kooxda hablaha ee Manchester City ee dalka Ingiriiska. Laacibadan ayaa diiday heshiis cusub oo ay la gasho kooxda Everton si ay u noqoto haweeneydii saddexaad oo England ah oo u dhaqaaqday East London iyo markii uu dhamaaday xilli ciyaareedkii Fowsl. Dugan ayaa dhalisay 13 gool waxaana ay ka caawisay Everton in ay ku dhamaysato booska shanaad xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Sidoo kalena waxa ay 3 gool u saxiixday xulka England ciyaartii ay kala hortageen Turkiga bishii September. intaasna daawadayaal waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii wargeysada waxay qoraan oo saacadaan oo kale aad ka daawataan shaashadaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland habeenkan caawana daawadayaal barnaamijkii intaas ayaa uu nagaga idil yahay kamarada quruxda badan iyo lightingkaasi daawadayaal waxay noo hagayay kamaramaanada Foosi Ahmed Caynab Foosi Samiir Cabdiraxiin Muuse Yuusuf Cabdiraxiin Kanadi habayntii isku dubaridkii Maxamed Ibrahim Dembeel iyo Jamcaale aw Cali Ibrahim soo jeedintii anigoo Jamaal Axmed Naasiro oo idinku dhaafaya kulantii dambe ka hor. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.